waa sheeko xirfad qalliin oo la yaab leh iyo inan yaroo la yaab leh. I just want to write. waxaan rabay inaan warqad qoro oo aan u diro waalidkii dhalay inanka aan rabay inaan gacantiisa helo waayo haddii ay ii diidaan waxaan ka samayn karayaa may jirin. Because they didn't have to do that if they didn't want to. kadib markuu cudur kaga dhacay gacmaha iyo lugaha isagoo 2 jir ah, Sion Harvey markuu 8 sano gaadhay waxaa loo sameeyey qalliin xubin hormood ah oo 10 saacadood qaatay. bilo badan oo baxnaanin ah ayaa ku xigay. Nice. A remarkable young man because wiil yar oo cajiib ah ayuu ahaa. Isbitaalkan ayuu toddobaadyo ku jiray. Si joogto ah ayaa loo daaweyn jiray. Tijaabooyin badan ayuu samayn jiray. mid uu diidayna ma jirin ama uu yiri ma doonayo maanta inaan sameeyo. or I don't want to today or I don't feel like it. waxaa jiray dib u dhac badan oo jidhkiisa ayaa diiday 8 goor gacmaha cusub. laakiin dawooyin kala duwan iyo shaqo adag ayaa keentay horumarka cajiibka ah. Now I can get myself dressed. iminka aniga dharkayga xidhan karaya iyadoon cidina i caawinaynin. waxaa kaloo aan samayn karaya inaan tallaajada kala bixi karayo qabqabowgiiyo waxaan u baahdo. Out the refrigerator without anybody helping me. He's become this independent. wuxuu noqday qof madax bannaan. ma ii baahna mar kasta. daawadiisa asaga lee qaata. maxaa meeshaan u joogaa? sidaas ayaa dareemayaa. ma ii baahna sanadka dambe. waa arrin aad u qaraar ah. Is he not going to need me next year? Is very bittersweet. Here, that my waxaa halkaa ku sawiran waa Maxamed Cali. waxaa kaloo halkaasina ku arkaysaa waa Ray Lewis. aniguna dhexdooda ayaan ku jiraa. baadhitaano la sameeyey ayaa muujiyey in maskaxdiisu samaynayso wadooyin uu ku xakameeyo kuna dareemo gacmihiisa. laakiin Sion uu rajo weyn yahay. if any kid ilmo kasta oo daawanaya barnaamijkan oo xaaladdu ku adag tahay waxaan kula talin lahaa weligaa lama quusto ee hore ayaa loo socdaa. waxaana dhacaysa inaad ujeedadaada iyo hadafkaaga aad gaadhi doonto. hands, I have 2 hands.